السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan barnaamij ama xalqad ay kaga hadlayno xalqooyinkeenii hore oo ku saabsanaa ganacsiga iyo dhaqaalaha fursadaha laga sameyn karo wadankii hooyo oo dhamaatid xiiseynaysan inaad maalgashi iyo fursad iyo ganacsi aad ka bilowdaan. waxaan maanta barnaamijkan kaga jawaabi doonaa su'aal in badan soo noqnoqotay ay soo weydiiyeen qaar ka mid ah daawadayaasheena ku taxan kanaalkan. fadlan haddaad jeceshahay inaad xog badan ka heshid fursadaha ganacsiga wadanka ka jira iyo talooyinka aad maartay sameeysan kartid xagga maalgashiga, subscribe saar wixii allaale wixii su'aal qabtid ama si aad jeceshahay inaan wax kaaga biirino ama si aan kaaga soo jawaabana fadlan qaybta hoose ee commentiga ku dhaaf. maanta haday halkan soo saarno su'aashan waxayna soo weydiiyay walaalkeen Xamse Cismaan iyo Sharmaake waxay soo weydiiyeen su'aal u dhiganta fadlan walaal waxaan haysanaa lacag dhan $20,000 waxaan rabnaa inaan ganacsi ku bilowno ma nagu biirin kartaa fursad ama ganacsi aan ku bilaabi karno $20 sida daraadeed waxaan halkan ku soo gudbin doonaa fikrado ku saabsan ganacsiyada lagu bilaabi karo dhaqaale dhan $20,000 seen la socono $20,000 waxa weeye dhaqaalo yara fiican oo maaliyadiisu ay wanaagsan tahay waxyaalo badan lagu qaban karo marka loo eego xaddiga lacagtaas. marka haddii soo gudbino waxaan halkan kula wadaagaynaa 5 fursadood ama 5 ganacsi oo ay ku bilaabi karaan $20. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن. sida waxay ku saleynaynaa ganacsiyo ay dadku garanayaan ama baahidooduna ay wadanka ka jirto magaalooyin badan aan maaragtay hadda laga sameeyay qaar badan ay fursadoodu ka banaan tahay. ganacsiga koowaad walaalay hadda soo qaadano waxa weeye waa convenient supermarket ama mini supermarket waxa loo yaqaano. waa dukaan yare ama supermarket yar oo casriya wax walba haya casri ah oo qofka uu ka heli karo adeegii uu baahnaa oo dhan balse kooban aan aad weynayn. waxaad sameynaysaa waxaad furaysaa dukaan yar supermarket ah oo qofku ka heli karo adeegii cosmetica adeegii cerealka ama waxyaalihii boorashkii oo kale iyo biskudadii adeegyadii daawooyinka oo kale adeegyadii dharka oo kale adeegyadii waxyaalaha badan oo supermarket ka kooban yahay. mini supermarket ama convenient supermarket waa fikradaha aad wadanka uga shaqeynaya dadkuna ay hadda aad u xiiseynayaan in meel dukaan qurux badan oo casri ah oo waxyaalo badan ay ka heli karaan oo nadiif ah oo wanaagsan inay dadku ka adeegtaan. waliba waxay dadku jecel yihiin marka dukaankaas naqshadiisa la hagaajiyo oo supermarket yar oo casri ah oo nadiif ah oo qofku electronic waxyaalo badan uu ka heli karo ugu imaan karo inay lacag fiican wax kaga iibsadaan. magaalooyinka hadda aad iyo aad maartay looga faa'iideystay ama aad looga sameeyo waxa kamid ah boosaas oo kale garow oo kale iyo hargeysa oo kale inta waan ku arkay aad bay ugu badan yihiin. marka insha Allah meelaha kale waa laga faa'iideysan karaa. waxaan idin kula talin lahaa haddaan talayro faa'iido la idin siiyo supermarket kaas waxaad markasta ku dartaan machine ice cream. marka dadku waxa weeye waxaan la socono wadanka jawgiisa waa yar kulul xaraarad ayuu leeyahay ama qorax joogta ayuu leeyahay. dadkuna waxay jecel yihiin wax isku qaboojiyaan. dumarka iyo ciyaalka iyo qayb badan oo bulshada kamidana waxay aad iyo aad u jecel yihiin oo supermarketyada ugu dhaqdhaqaaqa fiicanba intaan ka arkayay ice creamka oo aad iyo aad looga gato. marka markasta isku day inaad insha Allah machine ice cream raacisid. waa mini supermarket wadamadan uu leeyihiin waa dukaan yar oo ka baxsan supermarketka weyn oo maaragtay wax kasta aad ka heli kartid qiimihiisuna maaragtay yara qaali yahay oo express waxay dhahaan supermarket oo kale bay dhahaan wadamadan reer galbeedka. marka waa fursad wadankii laga sameyn karo. waxaad ku bilaabi kartaa $20,000 waxaad helaysaa shirkado badan oo soo dejiya badeecadaha ama productyada supermarketka lagu gado. shirkadahaas aad xiriir la sameysanaysaa iyagana insha Allah aad ka heli doontaa badeecadihii aad ku bilaabi lahayd ama waxyaalaha aad ku gadi lahayd oo dhan. hargeysa shirkadaha soo dejiya boosaas oo kale shirkadaha soo dejiya dabcan meelaha kale ee joogtidna shirkadaha aad ka heli doontaa soo dejiyo oo maartay ku wareejiyo jumla ah. fikradda labaad walaalay waxa weeye iyaduna hadda aad u shaqeysa aadna looga faa'iiday waxa weeye mini gas station ama fuel station kaalin shidaal oo yar oo casri ah oo noocan dieselka ah iyo petrolkaba ah laakiinse yara nadiifta ah oo shidaalkoodii dad badan waxay waqti xaadirkan doonayaan inay iibsadaan shidaal la soo shaandeeyay oo nadiif ah oo tayadiisa la hubo. marka meelaha laga gato waxa kamid ah kaalmaha yar yar ee maaragtay hadda ku soo badanaya
wadooyin kamida wadooyinada magaalooyinka oon hadda hore u lahayn oo kale seen loo socono waxaa hadda aad wadankii ugu soo batay gaadiidka qof kasta oo yani ilaahay wax yarba siiyaba yani gaari buu wataa gaadiidkii dadkiina hadda way soo leekaanayaan marka sanadkii amase bishii haddaad geshid intaas oo foosto oo shidaala oo barmiil intaas oo maartay calaa litir adiga faa'iido ku saaran hal wiil oo kale ayaa kaaga shaqeyn kara maalintii oo dhan shaqaale badan uma baahna waana waxyaalaha hadda aad looga faa'iiday waxaana lagu qiyaasay sida la ii sheegay 25,000 oo dollar meelaha saabadi lagu sameeyaa shirkadaha sameeya ama dabcan hadda tahay qof xariif oo internet wax ka baaran kara mashiinada kaalinka shidaalka oo kale shirkadda Alibaba ayaad ka soo iibsan kartaa oo yani China oo kale ka dalban kartaa ama Japan waxa weeye oo lagu keenayaa marka lagu keenana dabcan injineerada iyo qaabkii iyo wixii shirkadaha marka jooga ee kaalmaha shidaalka sameeya ee la kaashanaysa marka mini fuel station ama gas station waa baahi iyaduna joogto ah oo gawaaridu markasta u baahan yihiin haddaad liis macaamiil samaysatid yani dadka u baxa maartay magaalooyinka baadiyaha booyadaha biyaha qaada yani haddaad liis samaysan kartid waa ganacsi aad yani dad ku xisaabtan aad helisid gawaari joogto aad helisid hal qofna kaaga shaqeyn karo mushaar badan kaaga bixin karin khatartiisuna yar tahay waa ganacsi aan kula talin lahaa gas station wadankii waad ka samayn kartaa haddaad 20,000 dollar haysatid ganacsiga saddexaad haddeen ka dhigno kan insha Allah iyaga gabdhaha ayeen maartay u hibeynayna ganacsiga saddexaad ee gabdhaha u hibeynayna waxa weeye beauty salon marka waxa beauty salon maxaa la dhahaa beauty salon waxa weeye meel yani qaab coiffure oo kala ah ama si dumarka lagu daryeelo oo dumarka maxay ahayd aroosyada ah qaar ka maartay xafladaha le qaar ka yani munaasabadaha kala duwan oo kale u baahan meel maxay ahayd timahooda ilaankooda Allahumma musta'an waxyaalaha badan ee qurxinta dumarka oo kale ah oo yani lagu sameeyo dabcan way jiraan dad badan baa guriyo ku sameeyo oo guryahooda hadda boordadeer ku dhajista oo la dhaha haddaad u baahan tahay coiffure ama ilaan ama arrimo noocaas oo kale ah yani waan ku sameeynaa laakiin wali waxa maqan meel yani beauty salon professional ah oo gabadha ay ka heli karto dhammaan yani waxyaalaha u baahneed oo kale hadda aroos jiro oo kale ay tash kira ah ama dharka kirada aroos oo kale ay ka heli karto badeecado wanaagsan oo tayo leh oo yani jirkeeda ay ku daryeesho kareem oo kale ah oo European oo kale ah oo kale ay ka heli karto mashiinka yani uumiga wajiga ma aragtay yani wax kaga qaada haaraha oo kale qaarka timaha kaga qaada yani waxyaalahaas oo dhan marka beauty salon professional ah yani wadanka wuu ku yaryahay meelo kooban ayuu ka jiraa sida caasimada Hargeysa oo kale marka meelo badan ayaa laga sameyn karaa oo qofku 20,000 dollar ku bilaabi karaa dabcan kuraas wanaagsan muraayado wanaagsan meel nadiif oo maartay mutaleel yani qac nadiif ayaad u baahan tahay waxaad kaloo sameyn kartaa xataa marka beauty salon ka gabdho aad sameysaan yani ganacsi kale ku dhex wadi kartaan oo مرفشر عصري انت سميسان بعد كريمكي شامبوينكي اللهم استعان بدا عاديه كله اد كسي غدي كرتان انكو فايدين سارنتahay maadaama aad meesha ku shaqeynaysan oo kale hadaad heshaan bishii 6 ilaa 10 aroos oo kale waxa dhici karta ilaa arooski kasta inuu ilaa 15 gabdhood oo kale oo adeeg loo filinayo service in yani ala xabaad intaas oo lacag aad ka heli kartaan marka waa ganacsi isagana 20,000 dollar lagu sameyn karo ganacsiga afraad waxaan ka dhigaynaa allahumma musta'an VIP restaurant ama cafeteria oo kale waxyaalaha dadku maartay ay jecel yihiin in aadaan meel nadiif oo qurux badan oo cafeteria ah ama restaurant iyo noocyada casriga ah sida pizza house oo kale xamar way garanayaan dadka ku nool oo kale yani meelo badan ba pizza house aanu ka jirin oo kale creams oo kale yani meelahan maartay laga helo gelatooyinka iyo waxyaalaha ice creamta macmacaanka oo biskudadii iyo crepeski iyo waxyaalo badan noocaas wata marka restaurant ama cafeteria VIP waa waxyaalaha dadku lacagta ku bixiyaan hadda Hargeysa oo kale iyo waxa weeye koobkii sharaabka hal door baa la siiyaa boosaaso ka basi qaalisan koobka shaaha yani meel aad kaarkisay barnaamijyadii aan maaragtay video waa daawan kartaan aan soo duubay oo kale cafeteriagas boosaaso ku yaala casriga ah green cafe oo kale waxa laga siiyay koobkii shaaha $1 marka maalintii markuu gado 1,000 koob shaaha $1 ku dhufo $1,000 way waxa dhici karta maalintii inuu ninkaasi sameynayo intaas kuna faa'iido sababta maxay ku dhacday waxay ku dhacday hallkiisu waa VIP way kuraas VIP taala AC-gi baa ku xiran oo leer qabow ku soo deynaya
shaahi oo dhowr nooc kala ah, strawberry tea, macchiato, cappuccino, waxaan ka helayaa maaragtay liin macaan, avocado, shama, yani intaas wuxuu yani yara VIP ayaad ka helaysaa. pizza oo kale lagu sameynayaa, bakery oo kale lagu sameynayaa. marka meel casri oo cunto oo VIP ah waxa weeye waxyaalaha maaragtay $20,000 lagu bilaabi karo, lacag badan laga qabto. hadda meelaha lacagaha badan laga sameeyo wadankii kamida weeye. haddii qodobka ugu dambaysa aan kusoo xidhnana waxa weeye oo waliba tala aan faa'iido aynu ku dari doono si insha Allah saad maartay la socotaan, waa electronic shops. يعني waxyaalaha elektrooniyada dukaamada elektrooniyada waa waxyaalaha baahidooda soo noqnoqoto aad dadkan u jecel yihiin, faa'iido badan laga helo. marka dad badan waxaan garanayaa ma sha Allah dhalinyaro ah oo $5,000 ku bilaabay, maantana ilaa hadda 3 electronic leh oo ma aragtay si kobcay, guriga ka sameystay, hanti badan ka sameystay. dadku waxay u baahan yihiin mobile, waxay u baahan yihiin charger, waxay u baahan yihiin xarig dhago, waxay u baahan yihiin laptop, waxay u baahan yani waxyaalahaas oo dhan waa baahiyo joogto ah. ardaydii baa u baahan, ganacsatadii baa u baahan, maxay ahayd dumarkii baa u baahan, bulsho badan baa u baahan. marka electronic shop waa waxyaalaha baahidiisu soo noqnoqoto, aad waliba high margin wax la dhaho luqadda ganacsiga, aad faa'iido fiican saaran kartid. kasoo qaata telefoonkan wuxuu kugu fadhiyaa $80, waxaad ku gadaysaa $130. maxaa haga ku saaran $50 faa'iido, yani waa percentage aan la helin weeye. yani waxyaalaha aad maaragtay maxay ahayd gadi kartid oo kasta oo dhan wixiina ka xumaan maayaan oo kaana dhici maayaan, sida cuntada oo kale. maxay ahayd online kaad ku gadi kartaa, dukaankaaga ku gadi kartaa, macaamiishaada joogtada baad ku gadi kartaa. waxaad u baahan tahay marka electronic shop waa waxyaalaha aad iyo aad u shaqeeya, faa'iidada badan laga gaaray waqti xaadirkan. haddaan tala fiican idin siiyo, dadku waxa badan elektrooniyada wadanka lagu gada qalab laga keenay China iyo wadamadan Vietnam iyo South East Asia laga keenay, waan tayo badan lahayn oo qofkii uu qaadanaya oo ka xumaanaya, markaas haddana gadanaya, markaas haddana ka xumaanaya. suuqyada isku daya Turkiga oo kale, East European kan oo kale, yani suuqyadan raqiiska ah ee Europe waxay gadaan qalab electronic oo aad u tayo fiican. maxay ahayd shirkada Turkiga jira telefoonna soo saara xataa, oo yani waxay gadanayaan wax tayo leh oo fiican oo macmiilkaaga anfacaya, in badan oo kugu soo noqonayo. isku dayana shirkadaha qalabka soo iibsataan sida dadka wax tayo leh uga gadaan, wixii China iyo wixii maartay aad ka tayadooda hoosaysan laga maarmo. marka shanta ganacsi ayaan maanta kulada maanta la wadaagaya dhammaan dadka haysta dhaqaale dhan $20,000 amse rabayna ku sameeyaan. fadlan hadda jeceshahay wax su'aal ay soo weydiisid qaybtan hoose commentiga igu dhaaf, waa meesha ugu dhow aan kaaga soo jawaabi karo. haddaad u baahan tahay ma aragtay yani wax talo iyo tusaale oo kale amse yani insha Allah waqtiga markaan helo aan kaaga soo jawaabaya. Instagram-kayga igala soo xiriir oo Instagram-ka igu soo dira, waa meesha iyadana labaad badi dhamaan xaqiijiyana asxaabtayda uga jawaabo su'aalaha ay qabaan. isbuuc kasta waxa weeye waqti kasta ay ugu qaadato, isbuuc gudaheeda ayaan uga jawaabaa. marka Instagram-kan igala soo socda, waxaan leeyahay dhammaantiin fadlan muuqaalka like saara, kanaalkana ku soo biira haddaan subscribe saarin. Assalaamu calaykum.